soo dhawaada ninkan gabadhiisa intuu soo wado wuxuu ku dhahay ninkan iska bar ninka guursanaya waaye iyadana waa tanahay intay yaabtay aabeed waxay ku dhahaysaa ninkan aashigiisa si fiican u fiir isaga darbijiif waaye adigana waxa ku haysaa guurso waan ogahow ku dhaha waana saxan tahay ninkan sidaas waaye laakiin waxa la gaaray xilligii aad bara lahayd oo aad ixtiraami lahayd qiimaha ay dadka kale leeyihiin waxay taagan tahay haddii ay sidaas tahay waaba ka baxay hadda kadibna guurdhan maliga maqlaayo kadib wuxuu u sheegay haddii ay arrintan diiday inaysan dhaxalkeeda qaadan doonin midkan uu yahay wadada kaliya oo u furan iyadoo xanaaqsanay meeshii isaga tegaysaa midkan maga dab harayo raaca waxay weydiinayeen waa ogahay lacag badan inuu aabbahay ku siiyay meeqay ahayd wuxuu ku dhahaa aniga meeshaan lacag darteed uma imaanin wax kale ma soo doonin adiga ku soo doontay marka haddana na keenay gurigeena aadayna xogaa daldaala ka muuqdee markii ay gurigii yimaadeen waxay la yaabaysaa midkan darbijiifka guriga uu ku nool yahay isla markii waxay weydiinayeen midkan gurigaaga miya haahu ku dhaha midkan waa natiijada ka dhalatay qashin aan wadada ka aruuri jiray intuu baxo biyo cad u keenaa iyadana waxay la yaabantahay biyaha cadka maadaama cabitaan cabi jirtay subaxdii kale banaanku intuu baxo wuxuu soo laabanaa isaga oo dhar u wado iyadana sidoo kale dharkan makeeliisa waxayna ku tilmaamaysaa inuu huudhi yahay waxay ku dhehaysaa lacagta maanta soo shaqayso dhan igu soo wareeji midkan dhar maana aniga dhar ku soo gadanaye isna waa kana shilimaad badan oo intuu jibkiisa ka soo bixiyo gacanta u saara waxay u sheegaysaa in shilimaadkan ay suuqa waxbana ka goynin dhulkeena ku daadine asna shilimaadkiisa intuu dhulka ka aruursado meeshii isaga taga waxay isku dayaysaa inay lacagteeda isticmaasho si ay dhar ugu soo gadato laakiin waxay arkaysaa in kaarirkeeda oo dhan aabeed uu xanibay kadib waxaa ku soo dhacaya qorshe ah inay saaxiibo badan maadaama ay leedahay inay u tagto ayna lacag ka soo deysato intay soo baxday gabadhan saaxiibadeed ka mid ah wadada kula kulmee salaan kadib waxay weydiisanaysaa inay gurigeeda maalmo ay joogto kadib ay isaga tegi doonto middan waxay ku dhehaysaa horta haddii aan su'aal ku weydiiyo 2 asbuuc ka hor aa guursatay dharkii arooska maxaa wadataa ilaa hadda midda kale ma xasuusataa maalintii aad guursanaysa hadalkii aad igu dhahday maalintii ay guursanaysay caadi ugu xarakeedo waxay ku dhahday mataqaanaa ninkii guursaya milyaneer waaye adigana waa ogahay ma helaysid ninkaas camal laakiin waa kugu soo duceynaa sida uu heli lahayd waxay taagan tahay marka maalintaas waa kula kaftamaya adiga caadi ma u qaadatay laakiin middan hadalkeeda ma sii dhagaysanaysay meeshii isaga tegay ayadana intay soo baxday gurigeeda dib ugu soo laabane midkii intay aragtay waxay ku dhehaysaa waa kaa raargelina wax walba aan kugu sameeyey sababta aan sidaas u sameeyeyna waxay ahayd maadaama aan arrintaada waxba ka ogeyn wuxuu ku dhaha aniga da'dayda aaday u yareed markii aan bilaabay inaan wadooyinka qashinka aan ka aruuriyo aan iibiyo waqtigaas oo dhan lacagtii aan ka helay qashin aruurinta waxaan ku awooday kaliya inaan gurigaan ku gato waxay u sheegaysaa horta anigu waan jeclaan lahay inaan anigu lacag shaqaysto aan ku gato wixii aan rabo laakiinse dhibaatada ay haysataa waxay tahay ma aqaani meel aan wax ka bilaabo kadib isagu wuxuu ku dhahaa haddii aad diyaar u tahay arrintaas aniga kugu caawinayo isla maalintaas intuu soo wado shaqo keena iyadana waa tanahay nolosheeda waa markii ugu horreeyay shaqaysanayso bil kadib waxay ku faraxsan tahay maadaama ay heshay mushaarkeedii ugu horreeyay maalin kale iyagoo isla fadhiyo wuxuu weydiinaya maxaa ka fikiray waxay ku dhehaysaa kaliya arrinta aabbeeya ka fikira isagu muusan ila soo xiriirin waxay ugu dambeysay maalinta arooska nambaradiisa way dansan yihiin mana aqaani meeloo ka baxay haddii aan tagi lahaana waxaan ka raali geli lahay maalintii sidaa ula dhaqmay asna waa kanahay waa aqaanaa ku dhaha aabbaha meesha joogo ii sheeg markii ay ku dhahdo wuxuu u tilmaamaa magaca isbitaal oo aabeed ku jiro isbitaalka markay timaado aabeed wuxuu u sheegaya inuu ku faraxsan yahay maadaama ay hadda shaqaysato ayna isku filan tahay isla markii isbitaalka waxaa soo gaaraya midkii darbijiifka ahaa jira kadib waxay weydiinaysaa adigu dhakhtar miyaad ahayd hahow ku dhaha waa saxanta aniga iyo adiga aabbaha waqti dheer aan isnaqaanaa isagu wuxuu igu soo caawiyey inaan heerkan soo gaaro aan dhakhtar noqdo maadaama uu isagu abaalkaas iga leh hadda waxaa la gaaray xilliga abaalkiisa u gudi lahay kadib labadoodu waxay ku heshiinayaan inay mar kale aroos kala dhigtaan muuqaalkan intaas ku ekaya hadda halkaas soo gaartay leegnoosaa soo dhawaada naagtan lacag intay soo qaadatay gabadhan yarta oo ruutiga wadada ku iibinay horteeda ku daadaadine ayadana waa tanahay markay lacagta aragto dhulka ka aruurine kadib waxay dhehaysaa lacagtan aad ay u badan tahay hooyaday daawadeedana way ku filan tahay laakiin waxay soo xasuusanaysaa inaysan lacagtan iyadoo iska lahayn oo ay kaliya dhulka ka heshay maadaama ay naagtii lacagta iska leed ay gashay guri meesha u dhawaa waxay go'aansanayaan inay u geyso lacagteeda xoogaa kadib gurigeedii timaada waa tana iyadoo albaabka gargaraacayso iyadii albaabka kama furayso taas bedelkeeda waxaa ka furaya mid shaqaala waxay weydiinay adiga maxaad rabtaa haddii aad lacag rabtid ogow ma hayno mayay ku dhehaysaa waxaas ma u baahni ee naagtii guriga iska leed ma joogta alaabka dhunta u wadaaye waxay taagan tahay ma ujeedadoo meeshan way qoyan tahay waa tirtiraaye ee iidhiib haddii aa wax u haydid aniga u geynaaye iyadana waa tanahay intay lacagtii soo bixiday waxay ku dhehe lacagtaana wadada uga soo dhunta ee ordu gey midda guriga iskale meeshaanay ka dhegaysanaysa wax walba oo dhex maraya midda shaqaalaha iyo gabadha yarta middan gabadha yarta intay lacagta ka daftay waxay ku dhehaysaa adiga fasaxa tahay waa iska bixi kartaa aniga u geynayo middii guriga iska lehed meeshaanay ku dhuumanay ma rabta inay middan kala aragto kadib keligeeda isla hadlaysa waxay taagan tahay wax badan waa soo shaqeeyey laakiin maanta shaqaalanimay ugu dambayso ugu dambayn maanta waxaan awoodaa in aan gato waxyaabo aan hore u awoodin dhar qaaliyahan ka bilaabaa dahabna wax ku xijina xoogaa ay isla hadleeda intay jeebka lacagta gashatay meesha isaga tegey middan waxay rabtay inay ogaato daacadnimada gabadha yarta laakiin waxay ogaatay khiyaanada shaqaalaha dhinaca kale middan oo dheheeda maanta ay ugu dambayso inaa gurigeeda hagaajiye u imaanay waxay weydiinay xoogaa ka hor waxaa maqla qof albaabka garaacaya dad miya aniga ii imaaday kulaha adiga qofna muusan ku imaan ee waxa imaaday qof tuugsanaya anigana waxaan ku dhahay iska bax kadib iyadu intay iska dhigto qof hadalkeeda fahmay waxay u tilmaamaysaa inay sariirta si fiican u hagaajiso dhinaca kale gabadhii yarteed markii ay meeshii ku soo laabatay waxay weynaysaa bahashii ay ku iibinaysa rootiga xoogaa kadib iyadoo meeshaan iska fadhido oo isaga fikiraysaa waxaa u imaanaya midii guriga iska lahayd waxay ku dhehaysaa xoogaa ka hor gurigaaga aaday si aan kuugu geeyo lacag aad adigu iska lahayd lacagtu intay meeshaan kaaga dhacda anigu qaaday waxaa u dhiibay gabadha shaqaalaha ku ahe ma aragtay waxay ku dhehaysaa anigu wax lacagaan arka mala gabadhaasna waxna maysa ii dhiibin kadib midda yar middan waxay ku codsanaysaa inay hadalkeeda aaminto waxay ku dhehay hadalkaaga waa ku kalsoonahay waanu ka aaminsanahay lacagtaas aniga maysan iga dhicinay si ula jeedaa u tuuray marar badana waxaan arkay adigoo
anigoo meeshaan rooti ku iibinaya aniguna waxaan go'aansaday inaan ku caawiyo anigoo raba inaan ogaado daacadnimadaada ayaa waxa ogaaday midda shaqaalaha inaysan daacad ahayn marka hadda inta soo baxayd kaala tuuganimadeeda ku soo caday kadib labadoodu way soo raacayaan midii shaqaalaheed oo rabta guriga dhan inay isaga tagtay ka hor imaanay waxay weydiinayaan waqtigaaga ma la gaarin halkee u socotaa waxay ku dhaheen mar hore inaan kuu sheegaa la rabay laakiin waa kaa iloobay familkayga ii waceen waxay ii sheegeen inay xaalad degdega jirto anigana waxaan go'aansaday inaan u tago mar labaadee waxay weydiinayaan ma waxaa jiro qof aniga ii imaaday oo ii keenay lacag aniga iga dhuntay waxay taagan tahay maya qof kuu yimaada ma jiro keliya gurigan waxaa yimaado kuwa tuugsanayo anigana waxa u sheegaa inay iska baxaan ka warranay ku dhehaysaa waxaa jira gabar yar oo aniga lacag ii keentay oo adiga iigu kaa dhibtay kulaha oo aniga miyay lacag ii dhibtay war waxaas been waaye carruurta ayaantan jirto waxay barteen baraankii inay kugu ciyaarayaana laga yaabaa kadib midaan waxay ugu wacaysaa gabadhii yarteed waxay weydiinaysaa qoftaa lacagta u dhibta midaan miya haahay ku dhehaysaa waa saxantaa iyadaa waxay ugu tiri aniga u geynayo kadib calaacalay bilaabaysaa iyadoo dhehaysa gabadhaan yartaa miya aaminaya anigoo intaasna kuu shaqaynayana miya aaminaysid boorsaday wadatay ka qaadaysaa kadib waxaa ka soo daadanaya lacagtii oo dhan waxay taagan tahay aniga ma aqaanin siday boorsadan lacagta ku soo gashay laakiin midaan hadalkeeda ma sii dhegaysanayso ee gurigii iyo shaqadaba way ka burineen gabadha yartaana waxay ku dhehaysaa lacagtaan oo dhan adiga iskale hooyada caafimaadkeeda waa ku bixi kartaa waa kuwaana iyagoo labadooda lacagtii dhulka ka aruurinaya muuqaalku intaas ku ekaa daalkaa soo gaarta leegnosa soo dhowaada haddii aad maqli jirteen khayr ha samayn shari kuuma timaadee waatana iyadii oo muuqaal eh ninkan intii uu islahay naagtan uur kale oo isbitaalkan joogta lacagtan u aruuri oo caawi ayay isla asagii ku bilaabay oo lacagoo boorsada ku watay ka baxsane markii uu u soo aruuriyey lacagtii dhanna wuu siinaa iyadana waatanaahe way u mahad celinay lacagtaana u walba qorshay ka wadatay oo waxay ahayd lacag feeg ah markii uu ka tegay qashinka guridii sidoo kale uurkuna wuxuu ahay mid been ah waa kana isagana waa la qarxina midaan maanta mishikan inay fuliso way isku soo diyaarisa dharkii intay bedela timihii iyada dhan waxay ku soo baxday nuuc kale kadib intay soo baxday waxay u imaanayeen dhakhtarka qaybta qalliinka waxay ku dhehaysaa waxaa kaa rabaa inaa iga dhigta nambar 3 isaguna waxau u sheegaa in qalliinkeeda la diyaarinayo asbuuca soo socdo haddana ay iska sii bixisa lacagta iyada oo lacagtii soo bixi rabto ayaa albaabku waxaa ka soo gelaya midkii ay lacagta ka soo xadaysa iyo gabar yar oo dhalo isaga la socoto dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa adiga ballantaadii ma la gaarin waxaa ka dhiman 1 saac isaguna wuxuu dhahaa waa ogahay laakiin waxaa rabaa hadda inaa lacagta sii bixiyo si gabarteeda yartaa qalliinka loogu sameeyo boorsadiisii markii uu furana lacag dhan muku arkaayo ileen horaa looga baxsadee dhakhtarku midkan wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay inaan arrintan ku dhaho adigoo aanan bixin lacagaha loo baahan yahay gabartaada yartaa qalliinkeeda ma bilaabi karno gabadha yar aabaheed waxay weydiinaysaa sababta uu u murugaysan yahay iyo inay wax walba caadi yihiin isaguna gabadhiisa niyadow u dhisaa wuxuu ku dhahaa waxaa jiro arrin yar arrintaas yartaana anigaa xalina adiguna markii aad ogaatay in gabadha yartaa been loo sheegay muuqaalka leeg saare dhakhtarkii intuu ku soo jeesto wuxuu dhahaa haddii aad aragtid lacag waraaqad ku jirto aniga isoo wac waraaqada dhinaca kore waxaa ugu qoran Stephanie oo ah gabadheeda yartaa magaceeda saaxiibtiina waatanaahay waxay fiirinaysaa waraaqada magaca ku qoran waxayna arkay in gabadha yartaa magaceedu ku qoran yahay iyadoo waraaqadii ku sii jeedo ayaa dhakhtarka intuu soo jeediyo waxa ku dhahaa daayad Soomaaliya igu dhihin lacagta hadeera bixina iyadoo walwalsanay dhakhtarka waxay ku dhehaysaa waxaan u maleynaa inaan lacagta soo tirin hadeera baxa banaanka ku soo tirina dhakhtarku wuxuu la yaabay midaan waxa ku dhacay markii ay banaanka u soo baxda waxa qabana aabihii iyo gabadhiisa intay isku naxday lacagtii waxay gelinaysaa buug aysan aqoonin cidda iska leh intay soo jeesatay Stephanie aabaheed waxay weydiinayeen wuxuu ka rabo wuxuu ku dhahaa xoogaa ka hor Soomaalida ku jirin qolka qaliimada iyaduna waxay ugu jawaabay haa waa saxanta wuxuu ku dhahaa qaybtaas iyo agagaarkeeda ma ku aragtay gabar iyada timaheeda waxaa ku jiray cadcadaan uurna weylheed waxaan aaminsanahay iyadu inay tahay qofkii ixaday iyaduna waatanaahe waxay u sheegaysaa inaysan qof dhan arkin oo tilmaamahaas leh waxay bilaabay inay iska dhigto qof arrintaas ka xun wayna u tacsiyeene gabadhii yareed ee Stephanie buugaagtii ayadaa iska lahayd intay soo qaadatay aabaheed waxay ku dhehaysaa na soo bixi iyada oo u malaysa inay arrinteeda u saxan tahay kuwan macsalaamiinay isla markiina waxay ogaanaysaa inay kuwan buugaagta iyaga iska lahaayeen ayna qaateen alaabtooda midaan wax dhan ma ka dhintaan waxay rabtaa dharkan inay qaadato ay kuwii hadda ka daba tagto inay lacagteeda ka soo ceshato qaybtii koowaad waxay noo maraysa gabadh yaradoo qaadanaysa buugga ay lacagta ku jirta iyo tan ogaanaysa inay gabadha yar buugga iska lahayd waxay arkaysaa marka dharkan meeshan suran way soo gashanee si ay kuwii ugu daba tagto ayna lacagtii ugu soo ceshato waatana marka waxay soo gelaysaa qol ay ku jiraan Stephanie iyo aabaheed waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa inaan wada gabadhaada si aan u geeyo qolka qalliinka oo iyada qalliinka loogu sameeyo isaguna wuxuu arkaa inay midaan wadato dharka kuwa nadaafadda wuxuu dhahaa goormay isku bedeleen kuwa nadaafadda dhakhtarada ayaduna intay fiirisay waxay ogaanaysaa inuu sax yahay eena wadato dharka nadaafadda iyaduna waxay dhehaysaa waan is-iloobay inaan ahay kuwa nadaafadda qaabilsan laakiinse aniga weligay waxaan jeclaay maalin uun inaan noqdo dhakhtar gabadhii yareed ee Stephanie ayaa midaan intay soo jeedisay waxay ku dhehaysaa adiga hawlwali waxay ku dhehaysaa buuggaana u jeedid waa buugga sawirada hoo oo ku sawir wixii aad rabtid walwalka dhan wuu kaa tegi doonaa midaan hadalkaas markii ay gabadha yar ka maqashay aaday ugu farxay sababtoo ah buugga inay qaadato kaliya meesha aan u timid markii ay banaanka u soo baxdana waxay arkaysaa inay wili lacagtii buugga ku dhex jirto xoogaa kadib midaan waxay soo
gashay qolkii qalliinka loogu samay lahay qalliinkiina waa loo sameeyey dhakhtarku wuxuu ku dhahaa qalliinkaaga waa kuu dhameeyey haddana waxaa looga baahan yahay inay ii hambaliyesid maadaama aan qalliinkaaga ku guulaystay iyaduna waxay taagan tahay saa'ida u weynaysay waxaana ka dhigtay seeska aan u baahnaay dhakhtarku wuxuu ku dhahaa wax yaraa ii dhiman haddeer aan ku tusahay sug qalina intuu soo qaato wuxuu ka qarxinaa wixii uu sameynayay wuxuuna u sheegaya inay lacag feeg ah siisay sidaas darteed uu isaguna wax feeg ah u sameeyey iyaduna dhakhtarka waxay ku dhahaysaa waa ka hubaa lacagtaas waxay ahayd mid sax ah isla markii ay hadalkaas dhihaysana waxaa soo galaya Stephanie iyo gabartii yarteeda u dhalay wuxuu ku dhahaa aniga waxaan ku ogaaday inaad tuuga tahay markii aad soo gashatay dharka kuwa meelaha tirtiro iyaduna waxay taagan tahay oo markaas maxaa ii qabo weysay wuxuu ku dhahaa gabadhayda ayaa waxay aragtay inay lacagtu meesha ku dhex jirto markii aan qolka dhex galnay anigana kaliya wax kale ma sameeynin lacagtii meesha ku jirtaa soo bixiyay waxaan kuugu bedelay mid feeg ah midaana iyada xanaaqsanay kan waxay ku dhahaysaa ma waxaad sugaysa kaliya inta qalliinka soo korayo laakiin dhakhtarka wuxuu u sheegay inuusan qalliin meeshan ku haynin laakiin uu booliska ku sugayo haddana waxaa ka jawaabaysaa su'aalo badan oo ay ku weydii doonaan booliska isla markiina booliskii soo galaa qoftaana waa la xiraa muuqaalkan intaanu ka ekaayay hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar